waxaan dadka islaamka ah ama Soomaaliyeed ama reer Puntland uga tacsiyadaynayaa dhibaatadii maanta dhacday oo Ilaahay xaqiis ay ka qadaraatay laakiin u dhacday si lama filaan ah oo inta ay ku dhacday iyo inta ay ka dhacday ayaan ahayn intii amaridi lahayd ama ay ku dhici lahayd dhibaatada dhacday oo dhimashada leh oo dhaawac leh oo qaxa leh ayaan uga tacsiyadaynayaa dadkaas aan kor ku soo xusay oo ama islaamka ah ama Soomaaliyeed ama reer Puntland waxaan Ilaah ka baryayaa wixii dhaawacmay Allah booga dhayo wixii dhintayna Allah u naxariisto wixii dhaqan oo haatan aan dhibigaarinna Ilaahay ha ka badbaadsho dhibtaas waxa ay abuurtay iyo mid kaleba waxaan leeyahay dhibaatada dadka wada oo ama dhinaca dawladda ama dhinaca kale oo garabka kala ah dadka dhibtu ku dhacday ama dhintay ama dhaawacmay ama qaxay dadkii xilka loo hayay oo madaxda u ahayd ciidankuna ciidanka u ahaa oo loo igmaday inay badbaadiyaaniin wixii ayaga bannaanka ka ah oo cadowgooda ah ay ka badbaadiyaaniin weeye ciidanku dawladduna waxa weeye dadkan maanta jooga iyo dalkan wixii madaxda u ahayd sidaa la adligeed wax maxay ku dhaceen lama yiraahdaan maxay ku dhamaadeen baa la yiraahdaa heeriya intii maanta ahayd wada hadal baa socday kulama socday oroh in isugu timaada ku wada hadasha iyo arag in isugu timaadaba waxaan hadda idin sheegaynaa haddii aanu arrintii soo galay oo xabad joojin inaanu ka shaqayno aanu raadinay waa nala ka aqbalay dawladdii waa naga aqbashay ciidankii dawladda xisaabsanaa dawladdii way soo qaaday xarumaheedii bay ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abbaartoodii tahay dadkan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii ogolaato aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qolyihii kale oo garabka kala ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay caawa ku noqdeen waxaan marka u sheegaynaa dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay wax damana Ilaahayna aynu ka nabadgelayno innagana abaarteenu tahay inaynu ilaalino sidaas inaanu u sheegno dadka Soomaaliyeed ama reer Puntland in xabad joojintii ay hirgashay oo la isla qaatay oo ciidamadii kuwa waliba ay xirantoodii ay joogaaniin intaasaanu idin sheegaynaa si wixii dhintay loo aasi lahaa wixii dhaawacmay loo booga dhayi lahaa wixii dhibah oo magaalada ka jiri lahaa ay magaaladu nabadgelyadeedii iyo ashxaarteedii
ay ku soo noqotay wixii hadda laga bilaabo intii ka dambaysa haddii alla qadaro sida aan ilaahay ka rajaynayno dadkii waxgaradka ahaa oo howlahaas ayna dhexsanayeenna aanu isla qaadanay in dadkii uu istajiyo wixii tagay soo noqdaan wixii adeeganayay ee adeegtaaniin qof waliba uu dhibtii ay intaas asha allah xabadiina ku joogsantay halkiina loo gudbayo iyo wada hadalkii iyadoo aan xabadi jirin intaa inaanu idin sheegno ama dadka Soomaaliyeed ama beesha caalamka ama reer Puntland inta ay qusayso in la ogaado in xabadii la joojiyay halkiina loo gudbayo waxaan kaloo ayagana baaq u diraynaa dadka caa'ilada ah oo dadkii wadankan labeentiisa ahaa oo madax dhaqameedada ahaa oo isimada ahaa oo maanta oo kale arintan lahaa waxaanu ayagana ayagoo og qaybtoodna soo tagtay qaybtoodna wadada ku jirto aanu ayagana baaq ugu diraynaa oo fariin ugu gudbinaynaa inay yimaadaan si wax damana ayan u dhicin halkii iyo nabadgelyadii na loogu gudbo kaalintaas na ay tahay kaalintii maanta odayaasha ama madax dhaqameedka iyagana waxaanu leenahay idinkoo qaybtiinna soo tagtay qaybtiinna soo socoto waxaa la idin sheegaynaa inaynu isu nimaano ayaanu idin sugaynaa maadaaba meesha hadda wax ka dhaceen ay caasimadii tahay idinkana intaasaanu idin sheegaynaa sidaas waxaan leenahay in dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland ogaadaan waxaanu adkaynaynaa oo iyadana aanu u sheegaynaa shaqaaqooyin ka dhacay waxbaa sababay iskama imaan ama dhinaca dawladda ha ahaato ama dhinaca dadweynaha ha ahaato ama dhinaca ciidamada ha ahaatee waxaanu codsi u gudbinaynaa intii xal la gaarayo la isu imaanayo arinta ay tahay naftaada u qaado naftaada ka qaad Soomaalidu ku mahmaahdo geedihi aad xadba daaqi lahayd isniin daaq wixii kasta oo shaqaaqooyinkan iyo dhibtaan ka aslixeen hadday dawladda tahay iyo hadday baarlamaanka tahay iyo hadday ciidanka tahay iyo hadday dadweynaha tahayba in waxaas maalinta ay ku habban tahay lala sugo si aan xabadda ma u dhicin si aan dhibaatada ma u imaan xabad wiil baa ku dhinta ee weel kuma dhasho dhaqankaani ma jirin hal la wada hadlo khasaaro inta haynaga ekaado hal la raadiyo si shuruud la'aana labada dhinacba waxaan rabaa halkan inaan ka tacsiyeeyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada Garowe oo aynan ahayn meel looga bartay dhaqanka gacan ku hadalka ah Puntland ay ahayd asaaskii dawladnimada Soomaaliya lana lagana sugaynin waqtigan maanta inay arintaas oo kale dhacdo waxaan leeyahay marka hore intii dhibatay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta dhaawacantayna Allah ha u boogadhigo intaa waxaan raacinayaa madaxweynaha dawladda Puntland saaxiibka Siciid odayaasha dhaqanka culimada diinka baarlamaanka waxgaradka inta federaalka ku jirtay inta kalaba dhammaan dadka reer Puntland inay ka shaqeeyaan samaha wada hadalka isafgaradka wada xaajoodka waxa maanta la isku qabanayaa iyadoo kolley bari la wada hadlayo la heshiinayo
in dad badan ay dhintaan kadibna la isu yimaada macno ma samaynayso waxaan saaxiibaday kulligood kula talinayaa dhaqankaani ma jirin ha la wada hadlo khasaaro intaa haynaga ekaado xal ha la raadiyo si shuruud la'aana labada dhinacba waxaan rabaa inay u joojiyaan xabadda garaadadii shalay hawsha ku dhex jiray isimada reer Puntland iyo dhammaan qof kastoo waxgarad arrintaas ay danqaysana waxaan kula dardaarmayaa qof waliba si voluntary ah oo una qof kale waxba ku xidhinin inuu arrintaa u galo daacad laga wada yahay xalkuna uu yahay inaan gacan laga wada hadlin ciddii hadal isu qabtaa miis wada hadallo oo furan baa jira lagu wada hadlo taasaan kula wada dardaarmayaa saaxiibaday kulligood qof walibana inuu qoriga dhigo xabadda la joojiyo maanta wax dhaqan Soomaalidu ay ku fiirinaysa ma waa wax qariiba arrinta aad baan idin kula talinayaa u boorinayaa u dhiirigelinayaa qof kastoo arrintaas ay mudan tahay inuu wax ka qaban karana waxaan rajaynayaa inuu la isugu yimaado la tago waxaana dadka ugu horeeya diyaar oo inay wax la leeyahay ka qaban karaan ay ka qabtaan tagaan wixii tale aan ka geysan karana aan ka geysano sidaa daraadeed saaxiibada waxaan leeyahay kulligiin hal la joojiyo gacanka hadalku intaa ku ekaado hal la wada hadlo khasaaro intaa ku ekaado geeridu intaa ku ekaato burburkiiyo barakaco intaa ku ekaadeen aad baad u mahadsantihiin waliba culimaadudiinka iyo isimadaba waan ugu celcelinayaa iyo madaxda maamulkaba iyo inta kale wax garanaysa waa arrintaas in qof waliba inta kale gudboon uu ka galo qof walibana wax kasta oo xasaasiye keeni kara oo iska horimaad keeni kara oo dabkaas ku sii shidmi karaya inuu ka fogaado aad baad u mahadsan waxaanu halkan ku qabanaynaa kelmado habboonaaday haddii dhibi dhacday in dadka la gaarsiiyo ciddii ka walwalaysay meeshaan dhibtii ka dhacday iyo ciddii haatan hawsha tani ay dhexdooda ka dhacday hadday dowlad tahay iyo hadday qolyaha mucaaradka tahayba halkan waxaan uga diraynaa baaq nabadeed waxaana ilaahay mahadiisa intii islaamku sheegay buu warku iska yahay labada qoloba waxay naga aqbaleen xabad joojintaasna dadkii taladeeda lahaa iyagana waa la hadlayoo wadadii sidii uu sheegay islaamku ku soo jiraan salaadiintii Puntland weeye insha allahu iyagaa ka talin doona keliya halkan waxaanu ka bogaadinaynaa inay ku mahadsan yihiin labada qoloba haddayna aqbaleen inay labada qoloba isxakameeyaan xeryahooda ku ekaadaan naga warsugaan waxaa kale oo meesha ku jira waxaa la yidhi dhirtu haddaan la garaacin ma dhawaaqdo qoladan mucaaradkaa waa la wada ogyahay oo Soomaaliya inteeda badan waa ka warhaysaa baarlamaanka furitaankiisa iyo ajandayaashiisa bay dood ka qabeen dabadeedna arrintaasi waxay ka bilaabatay markii baarlamaankii uu furmay saakay oo arrimihii ay iyagu dooda ka qabeen ku bilowdeen horta xabaddu anuu qolo ku hormadhay ma aqaan laakiin fidmadu halkaasay ka kacday waxaanu leenahay qolada baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha inoo joojiya nabad baa naas la nuuga leh waa la tashan doonaa hay-aduhu mid walba shaqadeeda waa qabsan doontaa haddii nabad la helo wax walba waa asluxayaan oo waa hagaagayaan laakiin aana qubtaba dabadoodaa la qabtaaye mar haddii nabaddii salka loo dhigay xabad joojin la yidhi wixii shaqo ahaa waa in la joojiyaa annaga waa in nala ka warsugaa qolo waliba muraadkeeda insha allah way gaari doontaa arrimaha aanu ka hadlaynaa kuwaa weeye dadka danaynayey ama arrinta tani ay walwalka ku haysayna waxaanu ugu bishaaraynaynaa caawa qolo waliba xeryahoodii bay joogaan annagayna naga warsugayaan arrintana nabad baa lagu soo dabaalay dadkuna way baqeenoo xabadihii iyo wixii haddii la maqlay lamaba adeegan magaaladu way kala xirxirnayd magaaladu haynoo furanto nabadduna haynoo xasisho qolo waliba wixii ay shaqa oo ay leedahay
cid u diidi doontaa ma jirto sidii dawladdu u shaqayn jirtay shacabna ma garanaysaa ula tacaamuli jiray baa ilaahay idinka arrintu ku soo noqonaysaa laakiin waxaa la yidhi maxaad raganimo leedaho rag isku sin yacni cagaha in loo dhigay arrintii la joojiyo dhaqdhaqaaqii iyo shaqadiiba halkaa in la dhigo annagana nala ka warsugo haddii ilaahay idmo waxa aanu hadda u qabannay barays conference-ka waa sidaa waa idin salaamaynaa cidda joogta iyo cidda maqanba wixiina daawanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadkii waa u tacsiyeynaynaa dadkii wixii dhintay waa u tacsiyadaynaynaa wixii dhaawacmayna waa u tacsiyadaynaynaa waana u ducaynaynaa wixii dhintayna allah u naxariisto waxaa noolna ilaahay ha u boogadhayo arrintana ilaahay intaa haynoo ku ekaysiiyo allahuma salli calaa sayidina mawlana muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim faataxa dowladda puntland ay ka qayb qaadato iyadaa hadda dee maamulkii iyo dowladdiiba dadka shacabka u ah inay iyadu ka qayb qaadato xabad joojinta u horeysa oo iyadu joojiso baan ka codsanaynaa ilaahi raxmaan raxiim waxaan halkan ka hadlayaa dhacdada maanta ka dhacday garoowe aad baan uga xunnahay dhacdada iyada ah waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii ku dhintana in ilaahay u naxariisto ehelka iyo qaraabadana samir iyo imaan ilaahay ka siiyo wixii ku dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo arrintaa nabad lagu soo dabaalo wadahadal iyo nabad laysaga yimaado cadaawad iyo buuq iyo dagaal maanta faa'iido uma leh xabadda hala joojiyo xabadi xal maaha in nabadgelyo lagu soo wada dabaalo wadahadal iyo isafgarad wixii laisku hayo isafgarad iyo wadahadal lagu dhammeeyo waxaan ka codsanayaa dhammaan ismada iyo wixii waxgarada oo dhan inay arrintaa wax ka geystaan hadday baaq tahay hadday nabadgelyo tahay hadday tahay inay isugu yimaadaan oo wax ka qabtaan dhammaan wixii waxgarada oo reer puntlandba waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaa nabadgelyo lagu soo dabaalo xabaddana la joojiyo dhammaanna la isugu yimaado meesha dhibtu ka jirto dowladda puntland iyo dhinacyada kaleba inay xabadda joojiyaan xabadduna xal maaha dalku nabadgelyu ahaa nabadgelyaa lagu wada joogay wixii laisku hayo oo faraqa u dhexeeyana in si nabadgelyo ah la isugu afkarto oo lagu dhammaystiro baan soo jeedinaynaa waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in xabadda la joojiyo xabadina xal maaha dadweynaha reer puntland meel kastoo ay joogaanba waxaan gaadhsiinaynaa tacsi iyo baaq nabadgelyo baan halkan uga soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo iyagana mid la mida baan u jeedinayaa meel kasta oo colaad iyo dhibigo ka jirto in ilaahay colaadda iyo nabadgelyada ilaahay ka fududayo kana sara qaado meel kastana ay nabadgelyo ku waaraan ummadda soomaaliyeed ciddii dhib haysataba in ilaahay dhibta ka qaado baan ilaahay uga baryayaa uguna ducaynayaa tan maanta bilaabantayna in si xal nabadgelyaa layskaga yimaado laysku afkarto xabaddana halkaa lagu joojiyo xabad dambe aanay dhicin laysku afkarto aragtiya oo kala duwan laysaga yimaado oo wixii waxgarada oo hadday siyaasiyiin tahay hadday aqoonyaha tahay hadday isima tahay hadday odayaal dhaqameed tahay intuba inay arrintaa ka qayb qaataan oo laysugu yimaado oo hareeraha laga fadhiisto oo nabadgelyo iyo afgarad wanaagsan lagu dhammaystiro baan ilaahay ka rajaynayaa uguna baaqayaa dhammaan ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedba wixii dhibaato haysato in ilaahay dhibaatada ka dulqaado nabadgelyo iyo horumar iyo barwaaqaan u rajaynayaa meel kastoo xabadi ka jirtana baaq nabadgelyo baahan u dirayaa in ilaahay nabadgelyo dadka ummadda soomaaliyeed meeshay joogaanba nabadgelyo ilaahay ku siiyo dhammaantood gaar ahaanna taa maanta dhacday baan baaq nabadgelyo ka soo jeedinayaa in xabadda la joojiyo in laysu yimaado in la wada hadlo wixii waxgarada oo hawsha u fara dhuudhuuban hadday aqoonyaha tahay hadday siyaasa tahay iyo hadday madax tahayba waxaan ka rajaynayaa in arrintaa laysu taago dowladda puntlandna ay ka qayb qaadato iyadaa hadda dee maamulkii iyo dowladdiiba dadka shacabka u ah inay iyadu ka qayb qaadato xabad joojinta u horeysa oo iyadu joojiso baan ka codsanaynaa dhinacyada kalena inay iyaguna joojiyaan oo dhibta aanay ku degdegin oo ay sugaan wixii laysku hayo afgarad iyo wanaag iyo walaaltinimo lagu dhammaystiro baan ilaahay ka rajaynaynaa uguna baaqaynaa waa xabadinina maanta xal maaha dagaalla xal maaha waxba ma kordhinayo wax ku dhinta iyo khasaare mooyaane khasaaraha iyo dhibtuna maanta inaanay intaa dhaafin intaa maanta dhacday baan ilaahay uga baryayaa waxaana ku wargelinayaa dhammaan isimada iyo wixii waxgaradaba iyo wixii siyaasiyiin iyo wixii waxgaradaba in arrintaa ka qayb qaataan oo loo diyaar garoobo annaguna waxaan diyaar u nahay
oo soo dhaweynayaa inaan ka qayb qaato wixii karaankayga ah baan diyaar u ahay wixii la mida iyo wixii kalebana waxaan u rajaynayaa in ilaahay u fududeeyo howlaha waxqabadkooda iyo in dadka wax u soo jeediyaba ay arrinkooda la dhegeysto la maqlo baan ilaahay ka rajaynayaa